waxaan ilaahay mahadiisa inuu maanta noo soo dhamaaday wajiga koowaad ee barnaamijka afurinta dadka danyarta ee magaalada Gaalkacyo waana 15 bishii Ramadaan oo hore waxaan soo afurinay maalin walba waxaan afurin jirnay sidaan maalin walba waxaan afurin jirnay xarunta raadiga Gaalkacyo afurin jirtay 200 oo qof oo dadka danyarta magaalada Gaalkacyo 200 oo qof walba waa furkiisu ahaa $3 waana dareemi kartaa culayska leedahay iyo miisaanka uu leeyahay raadiga Gaalkacyo hadaan bahda raadiga Gaalkacyo culayska aan dhabarka u ridanay laakiin taasi waa khayrka Ilaahay iyo anagoo ka dadaalna si bulshadeena baahan aan u garab istaagi lahayn lacagta aan ku afurinay dadkaan ma ahayn lacag nooga timaaday hay'ad ama lacag nooga timaaday cid kale waa lacag aan ka arurno dhageystayaasha raadiga Gaalkacyo aad baan ugu mahadcelinayaa la'aantoodna barnaamijka ma suurtoogal lahayn inaan qabsoomo sababtoo waxaan barnaamijkan ku wadnaa waxa weeye waa $1 oo dhageystayaasha raadiga Gaalkacyo soo diraan dawladda iyo ururada bulshada caawiyana sidoo kale kama aan helin wax caawinaada haddana insha Allah waxaan rajaynayaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay ka soo qayb qaataan barnaamijkan afurinta ciddii faahfaahina ama lambarada lagala soo xiriiri karo lagu soo diri karana waxaan ku soo qornaa shaashadaha walaalayaal waa maalin waa bil Ramadaan waa bishii sadaqada waa bishii ugu fiicneed waa bishii waxbixinta ugu fiicneed walaalayaal ka soo qayb qaataan galabta waxaan ku sugannahay xarunta radio Gaalkacyo ee magaalada Gaalkacyo xaruntaas oo runtii sanadihii dambe oo dhan lagu afurinayay dadka aan haysan afur hadda Ramadaankeenan ilaa 200 oo qof baa galab kasta ka afurta runtii markii hore cadadka yar baa lagu talagalay maadaama tabar aysan jirinin ilaa 100 iyo xoogaa baa lagu talagalay hadda dadkii iyagoo baahan cidna ma celin karto in hadda 200 bay sii marayaan dadkii afurka u soo doonayay meesha walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa dadka muslimiinta codkayga maqlaya inay dadkaas muslimiinta oo saa'imiinta oo afurka soo dooranaya ay nagala qayb qaataan afurkooda حديثك واتوها من فطر صائما فله مثل أجره قف صومن قفك أفريه أجر كقفك صومن أو كلاب هليا لا ينقص من أجر الصائم شيء رواية لا شيئا بأهيد قفك صومن أجر كيسي نحبك نسخاء ميان أو قيب الله قصه جري مي قفك صومن أجر كيسي بوليه كي أفرينا كان صومن أجر كيسو كلا إله سينيا أصحابة النبي وحي ويديا صلى الله عليه وسلم أردهن إلى رسولك سيو annagu dhamaantayo ma helayno qof waxaan ku afurino ma heli karno marka hawshaas ay noqonaysaa markaas xadiidku wuxuu ahaa ajarkaas waxa Ilaahay siinaya oo qofka sooman qofkii afuriya noqonaya qofkii qof sooman ku afuriya ladqatan min laban kabashaana aw tamaratan am habat timira aw sharbata ma'in ama biya kabashadood biyo xogaa biyo la ka bado mar oo la laqo iyo xabad timira ama ka basho oo maxaan ku iraadaa caana ah inta qofkii sameeya baa wuxuu noqonayaa qofkii qof afuriyay waman ashba'a saa'iman qof sooman qofkii dharjiyo cunno badan siiyana saqaahu Allahu min hawdi sharbatan la yadma'u ba'daha hatta yadkhul aljannata aw kama qaal qofkii qof sooman dharjiyo cunno badan siiya qofkaasi isagu oomi mayo ilaa maalinta qiyaamaha wax oo ma qaban mayaan ilaa uu ka galo jannada markii la galo doomnan ma yaala gaajana ma taalo waxa la cunay waxa la cabayaba macaansi iyo waxa loo cabaya faakaysi marka walaalayaal waxaan ka codsanaynaa Allah ina barakeeyo ka nagala soo qayb qaata afur walaalka barnaamijka afur walaalka ee ka socda radio Gaalkacyo xaruntiisa magaalada Gaalkacyo xaruntan radio Gaalkacyo waa xarunta gargaarka ugu badan ee bini'aadantinimo ee gobolka Mudug laga sameeyo sida taqaaniin waa xarunta saldhigga u ah wax kasta oo bini'aadantinimo oo loo gumanayo oo gobolkan Mudug iyo guud ahaan Soomaaliya laga qabanayo runtii dhalinyarada soo dhabaradayay waqti badan ku soo lumisay oo gelisay ku dadaashay in ay waqti adag iyadoo lagu jiro ay sideeda u shaqeyso waxaan leeyahay marka hore dadkii ka soo qayb qaatay oo afurintan maanta halkaan aan u joogno qaybtooda ka soo qaatay oo ka soo shaqeeyay waxaan leeyahay waxa bixiseen wax ka khayr badan Ilaahay idinku bedelo waxaan leeyahay muraad kasta oo khayr ah oo aad leedihiin Eebbe subhanahu wa ta'ala umada kale waxaan leeyahay radio Gaalkacyo hadda waxa lagu afuriyaa 200 oo qof waxaan aad u jeclaan lahayn in inta ka bataan laakiin waqtiga lagu jira awgiis
hadda 200 oo qof baa lagu afuriyaa dadka Soomaaliyeed marka meel kasto ay joogaan waxaan ka codsanayaa ugu baaqayaa ku celcelinayaa inay bisha barakeysan ka faa'iideystaan dadka wax la siiyo waa dad xaqiiqdii baahidu afurinta baahideedu ay dhabka tahay sida caadiga dadku markii lacag loo qaybinayo wax la siinayo xiriyaha loogu tago waa laga yaabaa inay wax kala fsad bursadaan laakiin wax la cunayo markay tahay dadka ugu mudan uguna baahida badan ay yimaado marka waxaan ku celcelinayaa ha laga qayb qaato ha la soo taageero barnaamijkan dhalinyarada sida aad u jeedaan nambarada shaashada ku qoran intaas la yeeriyo baa laga soo taageeri karaa marka waa ku celinayaa meel walba aad joogtid wax la bax qof kasta oo maanta ay halkaan ka afuraya oo aad afurisid waa qof ka farxisay waana waxyaabaha ugu khayrka badan marka waxaan u mahad celinayaa radio Gaalkacyo waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waqtiga iyo maskaxda iyo maalka dhalinyaradaas bixisay oo ay isku dareen Ilaahay wax ka khayr badan ha ugu bedelo dadka waxaan kala ku sii darayaa loo soo duceeyo radio Gaalkacyo iyo bahdeeda iyo dhalinyaradeeda bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka dhaxadlaynaa meeshii la yiraahdo radio Gaalkacyo afurintii baan ku dhex jirnaa waxa meesha daadsan waa bariiskii iyo hilibkii iyo sharaabkii waxa way dadka masaakiinta loogu talagalay in lagu afuriyo insha Allah ta'ala waxaan in ka codsanaynaa idinkuna inaad macniyaad soo caawisaan dadkan masaakiinta oo halka ku afurinayno wayna kala soo qaybisaan assalaamu calaykum walaalaha muslimiinta waa idin salaam boqolkiiba 4 gaar ahaan shaqaalaha radio Gaalkacyo waa ku maasantiin 3 sano oo soo dhaweyseen radio Gaalkacyo afurkayna tooska oo noo socda intaan in ka sii badan yaan Ilaahay ka rajaynaa walaalaha muslimiinta waxaan ka baraynaa waan u mahad celinaynaa waan u mahad celiyo ku maasanyiin khayr adduunyo ka abaal mari Ilaahay ka abaal mari soo walba ku maasantiin وانا أذن كابال مرن إلى أذن كابال مرن وأذنكم ماذن وأذنكم ماذن والسلام عليكم ورحمة الله أنت إن كسب أذنك رجينا إن شاء الله سنة كيس الدحاد وهي أنت من أركيو Gaalkacyo radio Gaalkacyo ما شاء الله الله ذن دور الله ذن بركة وحوي ما الأشوف تنبأ الله ذن دورة أنا كان هني إلا وين أنت إنك بدن بعدين رجينا ذاتك سيد أنا وخالنتا هذا سيد Gaalkacyo كله radio Gaalkacyo كأنت وحيو بعرف أنا كأنت الله وقفته waxaan joognaa radio Gaalkacyo dadkii waxaan ahaa ummadii meesha laga afurinayay insha Allah ta'ala waxaan leeyahay dadkii baxsaday ajri xasanaad Allah ka siiyo annagana kuwii dhamaysto oo cimri ku dhamaystana Allah naga dhigo aad bay u maasiin baan leeyahay dadku wixii baxsaday iyo wixii karinayay iyo wixii wax qaybinayay khayr Allah ila kulmi ummadda waa u gargaareen waa afuriseen dad islaamada tihiin khayr Allah idin ku gargaaro يا الله خير إذا بدلوا تركوا مدة صريصة dadka muslimiinta waxaan u baqayaa sidaas oo kale sonkii yimaadada inay iskin garab taagaan oo afuriyaan walaalahood